kulankii xalay ugu weynaa kubadda cagta waxaa isku arkay fanaanadaha derbiga u ah caasimadda Spain ee Madrid. Waxa uu ahaa kulankii semifinalka ee ciyaaraha Supercup-ka dalkaas. Dhulka Carabta ayaa martigeliyay ciyaartaas oo Riyadh ayaa gogol u ahayd kulan la iska dhaliyay 8 gool. 6 daqiiqo markii la isla mariyay Hermoso ayaa cadaanka u diray aamuska oo waxa uu dhaliyay goolka furitaanka. In cabaara kadibna Antonio Rudiger ayaa furay xujadii loo diray kooxdiisa. waxaanu madaxa ku booqday shabaga kooxda derbiga ku ahayd ee Atletico Madrid. 9 daqiiqo kadibna goolkaas waxa yimi goolka daafacyadu iska caawiyeen oo kubadii jooga hoose ee Carvajal waxa dhameystiray daafaca garabka ee Mendy. Markan waxa layliska loo diray kooxda Simone oo Griezmann ayaa furtay 37 daqiiqo markii la soo gaaray kooxda Atletico Madrid oo markan way ka soo noolaatay goolkii labaad ee Real Madrid ay ka dhalisay ciyaartana waxay ka dhigeen 2-2. sidaas oo lagu kala nastay waxa hubaal ahayd in ciyaartan difaacyada labada dhanba ay ahaayeen kuwa deeq bixiyayaal ah oo aan qaadi karin mas'uuliyadda shabaqooda. 78 daqiiqo waxa yimi goolka Atletico. Cross ka yimi jooga sare waxay ku dhaliyeen goolka saddexaad kubad qaladkeeda ay iska kaashadeen Kepa Arrizabalaga iyo daafaca Antonio Rudiger. ka hor inta aanu rajada soo celin Carvajal oo kulankan goolasha ugu badan waxa dhaliyay difaacyada. ciyaartuna waxay aaday waqtiyada dheeriga ah ee 30 daqiiqo waxaana Real Madrid finaalka u diray goolkii uu isku shubay daafaca Stefan Savic iyo kii Ibrahim Diaz uu ku dilay rajada kooxda laguna aanayso Roja Blanca.